waxaaba la yidhaahaa oo iyana lagu daraa wadaadka maamulka madaxda ka ah dadka Soomaaliyeed ee dhaqaalaha bartay ee magac ku leh ee heshiisi wuxuuna ahaan jiray horana wasiirka qorsheynta ee dawladda dhexe iyo prime minister Soomaaliyeed haddana waa madaxweynaha Puntland maamulkiisi markuu dakhli u waayay ama dakhligii ay lahaayeen la lunsaday wuxuu alwaanima ay u geysay inuu lacag beenbeena uu sameeyo hadda maalin dhawood waxaan maqlayay oo baarlamaankoodu uu su'aalo warsanayay baarlamaankooda lahaa maamulku lacag buu sameeyay baarlamaanka Puntland kama warhayo lacagta tan markaa falsada ah ee beenta ah ee layna soo geliyay magaalooyinkeena hadda maxay lacagtan magaalooyinkeena hadda ka socotaa waa nin gacantiisa isku gowracaya tii Somaliland Soomaaliland diiday oo tan maxaynu ku qaadanaa ma abtirsiin ahaan baynu u qaadanaynaa markaa ileen waa malage waa dhaqaalahaagii oo lagu burburinayay inflation baa lagu ridaya sicir barar baa lagu ridaya reerkii $100 dibadda uga iman jireen ee hel u soo diri jirtay hadda bari 6 bilood gudahood waxba uma goynayso